بسم الله الرحمن الرحيم عشركن wuxuu noqon doonaa kuwii hore ka yar dheer waayo waxaan isaga soo gabagabeynaa home inta ku guda jirta si yar oo fudud ayaynu u koobaynaa waxaan baranaynaa line spacing wax uu qabto waa very important tusaale inoo qor waxaan sug waxaan dhan ka wada qaad inoo qor okay waaskaastaan anigoo ninka magaciisu yahay cali maxamed jaamac oo ka mid ardayda dhigata dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Cali Ibrahim waxaan halkan ka hanbalnayaa ardaydii ku guuleysatay imtixaankii form 4 intan ayaa lagu yiri noo yar kala durka war qoraalka yar laakiin warqada ku yar faaf markaas la isticmaalaa line space hadda wuxuu haystaa amar 1.15 waxaan ka dhigaa 2 flag soo kala durka hadda amar wuxuu qaatay aan siiyay 2.5 tirina way ka sii badanaysaa waxa ugu yar 1.0 waa ka isku dhijinaya marka line space ku inta waa kala durkinta laymanku sharax kalaba ma baahan waxay noo yimid meel muhiim waxaan baranaynaa sida dhibca ugu sameyn lahayd hadda ardaydeenu sii sharxaynaa okay ardaydeenu sharxaynaa waxaan leenahay ardayga koobaad in qorina arday la hambareyn halkan aad soo furanaysaa lambarada intaasoo nooc leeyahay lambarkiyo dhibic leeyahay lambarkiyo uu ku xiran tahay xidig marka kan bay noo dooro haleey Ahmed Nuur Jaamac hal waxa xusidnaa hal mar markaad click siiso ee enter siisan jeeda lambarka ku xiga lambarka lambar 1ka isaga automatic loo qaado ka Saciid Jaamac waa lagu fidiyo waxan mar labaad hadana enter si isaga automatic loo haystaa markaad ka jarasana backspace ka dooranayso backspace ka noqonayso hadda waxa la hadana dhibca samee dhibcihii waa kuwan dhibcaha waad arkay kulba dhibic uu sameeyo adiga waa taalka kugu qor sameeynaya u fiirso waa ka imka Nuura Cali iyo Saciid Nuur waad arkaysaa waxa xusidnaa markaad rabto inaad dhibcaha intaasoo dhibcada qurux badan sameyso buugga waan ku sharxay waxaad tagaysaan define new bullets warqadaas markuu soo baxdo buuggaada inaad arki doonto define new bullet ayaad tagaysaa pictures intaas oo nooc baad helaysaa waa kuwan waxa meeshaas dhibcaha taala ka hor anu waxaan iska jecelahay dhibcaha tusaale ahaan anu tanaan iska jecelahay taasaan iska jecelahay markaasaan okay siinaya kadib marka okay siiyo ka isbedelaya marka halkaad ka tagaysaa halkii waa define new bullets markaasaad pictures ka doonaysaa warqada ku soo baxda halka alaalka aad doonto ku qoranaysaa waxa soo dhan ka doonto ayaad ka samaysanaysaa okay waxaan ku xigsiin doonaa labadani decrease iyo increase buu ku sharxay goorma la isticmaalo very important weeyaan decrease taasoo maxay increase dhinacana aad yarto kan qoraal yacni xad ka baxsan goobaha cayiman sida koonaha iyo bartanka iyo koonaha kale baran doonaa ayaad waxaad geen karaysaa meel aan inta ahayn dib aad u celin kartaa ka faraad yar wadi kartaa tan way soo celinaysaa kuwan waxaad ku fahmaysaa kuwan waxa la yiri intan hadaba centerka gee saddexda goobood baan sharxaynaa taasi qoraalku waxay geysaa waa align text lefty dhinaca bidix bay geysaa hadda automatic ka haysto wala halkaas ku beegan tahay qoraalka okay tan waxay geysaa bartanka tan waxay geysaa koonaha kale waad arkaysaa waxaad intan ku fahmi karnaa si yaro kooban magaca fudud mugta Ahmed Boqor Ahmed ku yaala imka koonaha su yaala bartanka geebal bartanka waka koonaha kale gee waka saddexda goobood cayiman ee kolba mastarad saddexda goobood cayiman meel ka baxsan waxaad ku geyn karaysaa increase iyo decrease kan soo sharxay hadda fahmi kartaa waka la xad ma leh والله يساوي ماشي تنطق جسمك لكن أنت صاحب ما تكسر كريم مهم جدا وفهمتي وانقرت أنت مركز فهمتي
ayaa waxaan gelinaa qayb muhiim ah qaybtaas sort qaybtaas waa very important bal qaabka loogu shaqeeyno eegno okay waxa lagu yiri magacyada isku xiga magacyada isku xiga waxa lagu yiri dhammaan wixii Axmedna dhinac isku mari wixii Siciidna dhinac isku mari wixii Jaamacna dhinac isku mari marka intaas sameynayso way dhib badan tahay haddii aanad aqoon halka Microsoft wuxuu ku sameeyay goob aad inta ka sameyn karto hal mar baad highlight ka saaraysaa waxaad tagaysaa own sorti warqad yar baa ku soo baxaysa waxaad leedahay okay baad leedahay iminka waxaad aragtaa wixii Axmed dhinac isku mareen wixii xarafka A iyo wixii xarafka J xuruf isagu isticmaalaya magac ma garanay laakiin waa xuruftu wixii sa ka kaca dhinac buu geeyay wixii a ka kaca dhinac buu geeyay wixii j ka kaca dhinac buu geeyay qaybtaas marka waraaqaha sameynayso insertigeenu aynu aad ugu faahfaahin doonaa insha Allah laakiin hadda waa inaad fahantaa muhiim mar dambe ku soo noqon mayso waxaad fahantay marka ugu horeysa sidan waxa isku wada dhaxtaarsan hal mar baad click siinaysaa okay un baad leedahay waka isku xigsiinaya casharkaasna waa intaas ka markaad fahanto waxaynu ku xigsiin doonaa insha Allah casharkeena ah kuwan maxay qabtaan kuwani filan noo soo saar imika kan waxaynu qoraynaa waa arday dhigta dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Ali Ibrahim dugsiga berigan yaraa ka baxay aad baan u jeclahay marka waa ka highlight ka soo maraysa waa stylish qoraalku wuxuu ka dhigayaa qaybo qolba qaab uu kaaga dhigayaa halka ka daawo marba qaab uu ka dhigayaa waa dul marinaysaa un qaabka aad rabto in baad ka dhiganaysaa okay styliska kuwan aad balaagtay styliska suu sameeyay qolba nooc doonto kaaga dhigay iyagana waa qaabka aad uga dhigan lahayd qolba qoraalkaaga waxay la shaqo tahay kuwan bay la shaqo kawana waa color-koogii style-ka aad soo sameysay kalaradooda sidaad u sameynayso way qolba midabka doonto ayaad ka dhigi karaysaa fontiska aad ku qorayso fartuna waa kan qolba nooca doonto farta ayaad ka dhigi karaysaa kuwan waa dul marisun adun baa fahmay hal mar dad tijaabso cashar kasta waa inaad sida xaraf u qaybto haddii kale uu ku adkaanaya waa kugu ceeb adigoo soo dhigtay inaad ku noqoto qalba waxaanu sharxaynaa qaybtaas aynu sharxaynaa qaybtaa markaynu sharaxno waxaynu ugu dambaysiin doonaa qayb halkaas aynu ka nimid oo very important laakiin qaybtan ayaynu sharxaynaa fine waxaa la isticmaalaa intaasoo xuruuf markaad qorteed magac doonaysa inaad ka dhaxasho unbaad click siinaysaa warqadaas ha kusoo hadda iminka waxaan qorayaa arday waa in ardaynu ka dhaxelaa arday waa ka arday ma bedeli karaa oo halkaa joogaad bedeli kartaa saddexda qaybood halkan ku wada koobeen waa replace waa hel kadib wixii aad heshay wax ka bedel dabadeed bogga hebel iyo tagweyn oo inta bacay fine waan helay iminka waa kan arday replace baan tagayaa replace halkan waan fine what waxa la helay waa arday replace with waxa lagu bedelayo cali ku bedel cali marka lagu bedelo waxa leedahay replace baad leedahay maxay muxuu bedelay cali okay hadda muxuu bedelay cali hadda waxaan leeyahay waxa la heshaa hoose waxaan leeyahay wax la yiraahdo fine baan leeyahay marka hore fine bal hadda hel dugsi waa la helay replace with waxa lagu bedelayo sareen leh markaas aad leedahay next okay imiko wuxuu ku diiday hal mar ayuu amarka qaataa in wax laga bedelo go to waxa la isticmaalaa markaad rabto book inaad tagto midalan 100 page baa yaala bogga 9aad ama bogga 10aad ama bogga 100aad ayuu baad tagaysaa go baad leedahay bogga ku geeyaa waba intaa gebigeedu waa intaas ku soo koobayna fine waxaan ku dhaxaa marka qorayso fine waxaad raadinaysaa ku qoraysaa dad marka la helo ayaad replace tagaysaa waxaad ku bedelisay ka la helay baad ku qoraysaa markaas baad leedahay replace go to waxa la isticmaalaa markaad rabto bogga aad tagayso 100 page baa ku jira 100 ka kontraad rabtaa hal mar inaad tagto halkan baad konton ku qoraysaa markaas baad leedahay go to tag meel hebla bogga tag macna halkan ku soo koobaynaa waxaynu imid qaybta change case very important waxa weeyaan waxa lagu yiri dhammaan xuruuftan oo dhan waad arkaysaa kuwan oo dhan hada waxa naga bedel markaa markuu naga qaatay imika soo arkaysid
magacayga ayaad rabtaa inaad kaana xarafka la weyneeyo kaana la weyneeyo amba dhammaan la wada weyneeyo halkana laga tagaa ka koobaad muxuu qabtaa lower case wuu wada yareynayaa lower case xuruuftii buu ka dhigayaa sidaa wada yar upper case na wada weyneynaya labadaas waa isku cagsi labadaas waa isku soo jeed midna waa yare midna waa wada weyneeya bal lower case sidoo ka dhigaan eegno upper case na sidoo ka dhigaya uu weyneynaya inta marka la fahanto ayad waxa tagay soo xalaado capitalize bal weynee each word ka kale xaraf kale bal weynee waka marbu xarafka qalbo ugu horeeya jumlad ayuu weyneynaya waka waa capitalize each word bal weynee waka uu weyneeyay markuu inta weyneeyay kana waa maxay toggle case midna uu xarafka jumlada ugu horeeya ayuu yareynaya waka kuwa kale weyneynaya waa isku cagsiguna labadan waa isku soo jeedaan ka hadad faanta ka kale waa ka soo jeedkiisa ka hadad faanta kana waa ka soo jeedkiisa very important weyn taayir aad loo fahmo u baahanaysa lower case waa yare upper case waa weyne capitalize each word waa xarafka kolba ugu horeeya weyne jumlada toggle case waa ka ugu horeeya yare okay halkaas inuu soo koobina 10 ugu dambeeyay ku baranay home waxaan bilaabi doonaa insert insha Allah